nebigoo ilaahay dhowray hadduu ilaahay dembidhaaf weyddiisan jiray ilaahayna amray inuu ilaahay dembidhaaf weyddiisto bal innagoo har iyo habeenba dembiyadu inaga dhacayaan oo laga yaabo inayna inoo tirsanayn dembiyada inaga dhacayaan xaajadayn u qabnaa istikfaarka intay laagto aad iyo aad bay badantay kaana yastakfiru fi اlyawmi akara min 70 mara nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugnaatay maalintii 70 goor in ka badan inuu ilaahay dembidhaaf weyddiisan jiray xadiis kale wuxuu sheegaya innii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi اlyawmi 100 mara waxaan ilaahay dembidhaaf weyddiistaa una toobad keenaa maalintii 100 goor bal haddaynaan ogayn dembiba inuu inaga dhacayo ka hor weliba dhallinyaro badani waxay ku mashquulsan yihiin qurun iyo qashaabiray wadaan oo websaydada ka daawanayaan oo qalbigoodii kharribtay oo indhahoodii kharribtay oo hadh iyo habeen ay ku fooraraan oo qur'aankii ka mashquulisay laa kitaabka ilaahay baannu kala bixinayn nicmadii ilaahay baannu ku shukrinayn dad badan oo iyaga la mida baa ilaahay indhaha ka qaaday oo indha beelay qaar baa kansarre kaga dhaceen oo deed labada indhoodba laga saaray shukrinaqa waxaa ka mida in nicmooyinka ilaahay taacaadkiisa loo adeegsado markaasaa hadh iyo habeen macaasi buu u adeegsanayaa alla ilaahay xaliimsana alla ilaahay dulqaad badana miyaanu ilaahay ka baqayn qofka caynkaas samaynaya labada indhood in la tiro miyaanu ka baqayn xanuun aanu ka kicin in ilaahay ku sallido miyaanu ka baqayn siduu nicamkii ilaahay hadh iyo habeen ugu adeegsanaya macaasidiisa oo uu qurun iyo qashaabiir u daawanayaa oo uu sigisya u daawanayaa oo dumar qaaqaawan uu daawanayaa oo wax isfuulfuulaya uu u daawanayaa oo waxa uu ku mashquulsan yahay kitaab ilaahay aanu kala bixinayn tacab badani uu galay oo laga yaabo in 10 sano ama wax ku dhow intaa malcaamad u tegay qur'aankii uu dayaco haddii markaa maanta la yidhaahdo kaalay akhri jisaska hoose uu ka murganayo aanu ka bixi karay uu isleeyahay waad wanaagsan tahay ilaahayna intaa waa u dulqaadanaya ina allaha la yumli lilظaalimi xataa ida akhadahu lam yuflithu ilaahay ruuxa daalimkaa waa u kaadiyaa laakiin markuu qabto ma sii daayo war hooy maraan calaacal wax ku tarayn maraan tawaawac wax ku tarayn baad ka murugoon doontaa waad isku ciilkaambiyi doontaa war hooy baddaa ka baxa ilaahay ka baqa dhallinyaro badan baa waxaa ku jirta war rag iyo dumarba leh ilaahay ha laga baqo salaaddii buu ka mashquulinayaa waxyaalahaasi qur'aan akhriskii buu ka mashquulinaya kitaabkii ilaahay iyo kalaamkii ilaahay baanu kala bixinay wuxuu filayaa inuu wanaag ku socdo helayo walle haddii taa lagu sii socdo inaan wanaag la helayo laa fi dunya walaa fi alaakhira dariiqaa haddii laga bixi waayo waxaa laga toobad keeni waayo waxaad ku bushaaraysataa adduunyadana dulli aakhirana cadaab war hoy ha laystaba qabto war haddaa la dhodhow yahay ilaahay ha loo toobad keeno war qurunka iyo qashaabiirka ayaan la daawanin war nicamka ilaahay yaan loo adeegsanin macaasidiisa iyo dembiyadiisa iyo qurunka markaa in lagu daawado ina allaha la yumli lilظaalimi xataa ida akhadahu lam yuflithu xilmiga ilaahay yaanu ku kedin maa qarraka birabbika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalak rabbi maxaa kaa kediyey shaytaan inaad raacdo wuxuu kuu amrayo oo marba kuu laqimaayo kuu qurxinayo inaad la timaaddo miyaa idinla qurux badnaatay rabbi ha laga baqo war hoy ajashu gooray kuu iman doonto ma ogid geeridu kedisay ku timaaddaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam wajucila adillatu waasagaaru calaa man khaalafa amrii dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta dushoodaa laga yeelay ma waxaad filaysaa adoo waxaa ku sugan inaad dulli ka baxayso wallahi inaanad dulli ka baxayn haddaad saa ku socoto abshir haddaad sidaa ku socoto abshir bidullin fi addunya wa cadaabin fi annaar in lam tudarika raxmatullah sidaa haddaad ku socoto dulli adduunyo iyo cadaab aakhiro ku bushaarayso haddaan naxariista ilaahay ku soo gaadhin dhallinyarow lab iyo dhadigba dariiqa noocaasi dariiq xun weeye websayddadaa xunxumina aad bay dadka u kharribeen oo u fasahaadiyeen cimrigoodii u tagsiiyeen wixii anfacayay ka mashquuliyeen khayrkii adduunye iyo khayrkii aakhiraba seejiyeen salaaddii jimcayaashii iyo jamaacaadkii lagaga habsaamayo lagu seegaayo oo qaar ayba dhacdo jumcayaashu inay ka tagaan oo qaar ay dhacdo salaadihiiba inay ka tagaan oo salaad aanu tukan oo qaar ay dhacdo salaaddii waa tukadaaye laakiin jamacyadii ay ka tagaan aanu jamac xaadirayn habeennadii waxaa ku saamalaynayo maalintii oo dhan ku fooraro wax ku anfaca goormaad samayn doontaa daqaa'iqda iyo saacaadka iyo wakhtiyada aad joogtaa inay cimrigaaga ka mid taho cimrigaagii oo soconaya tahay ma ogid miya
alla muxuu shaytaanku ku farxay dadka waxaa ku mashquulsan rabbi ha laga baqo rabbi ha loo toobad keeno oo masaaliqda caynkaasa aad iyo aad ha la ysaga jiro oo dadka ku mashquulsan yaan lala saaxiibin ha laga fogaado waayo baruur keliya baruura qurmisa xumaantana waa la yskaga daydaa marka aad iyo aad ha la ysaga jiro allah ha loo toobad keeno allah ha la dembi dhaaf weydiisto